بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه، وبعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. ugu horeyn, nin linguistics ama afafka ku takhasusay ma ihi, laakiin duruufo jira daraaddeed unbaa lay weydiiyey inaan masalada tan wax ka idhaahdo. hore ayaan dad Soomaaliyeed ugala hadlay, kadibna waxay noqotay in laygu soo celceliyo waa mar saddexaadkii lay weydiiyo masaladan inaan bal dib uga hadlo. luqada waxaa la yidhaahdaa afku marka hore waa nicmo ka mida nicmooyinka ilaahay bixiyo. waa nicmadii ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ku karaameeyey nebiyullaahi aadam calayhi salaam. aadam markii tusayey malaa'igta sharaftida uu mudan yahay, aqoontii la siiyey waxay ahayd saa ilaahay qur-aanka ku tilmaamayo: wacallama aadama alasmaa'a kullaha ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. آدم وحل بريبا إلهي الأسماء، والأسماء وأصل اللغة بقى. اللغة العربية ويدن كيدا هذا مستر كاوح لقى دلالية. لغة أصل كيدو وأسماء ده وحكى لواحد ريال ونسكوح الحدا. إذن إلهي سبحانه وتعالى نبي آدم markii la karaameynayay waxa lagu karaameeyay af la baray. qur-aankana ilaahay markuu inoogu manna sheeganayo, manna sheegashadu waa gallad sheegasho. galladaa layna siiyey, nicmadayna siiyey rabbi subxaanahu wa tacaala markuu inoogu gallad sheegtay, waxa uu tilmaamayaa: alraxmaanu callama alqur'aana khalaqa alinsaana callamahu albayaan baa ilaahay yidhi. in layna abuuray waa laynoogu manno sheegtay, khalaqa alinsaan. qur-aanka in layna baray oo laynoo soo dejiyey waa laynoogu manno sheegtay. waxaa kaloo ilaahay subxaanahu wa tacaala ku gallad sheegtay callamahu lbayaan, bini aadamka inuu nudqiga, bayaanka, caddaynta, odhaahda in rabbi baray, inuu caddayn karo, sheegi karo camaa fii nafsih. qur-aanka mar kaloo ilaahay inoo manno sheeganaya ama gallad sheeganaya wuxuu tilmaamayaa: alam najcal lahu caynayni wa lisaanan wa shafatayn. laba indhood baannu idin siinay iyo carab iyo laba dibnood. waa aaladdii hadalka. walidaalik baa afafkaba af dee waa intan soo af soomaaliga laguma idhaahdo. carabiga lisaan luga alcarabiya. afafka kale language iyo langa iyo waxaan la sheego dham waa carab, waa aaladda lagu hadlo. ilaahay markuu inoo gallad sheeganayay wuxuu inoogu gallad sheegtay markaa inuu ina siiyey walisaanan wa shafatayn, carab iyo laba dibnood inuu ina siiyey oo adawaadka lagu hadlo. afku waxaa alle qur-aankiisa ku tilmaamaya inuu yahay aaya min aayaat illaah, aayaadka waaweyne rabbi lagu garto inuu afku ka mid yahay. wa min aayaatihi khalqu الsamaawaati wاlأrض waاkhtilaafu alsinatikum waalwaanikum ina fii dalika la aayaatin lilcaalimiin. ilaahay aayaadka waaweynee loo daliishadee lagu garto waxaa ka mid ah abuurkuu cirka iyo dhulka abuuray. abuuridda cirka iyo dhulka waxaa la dhinac dhigay waاkhtilaafu alsinatikum, iyo kala gadisnaanta afafkiinna, iyo wa alwaanikum midabadiinna. ina midabbo kale nooca basharka u tiin, afaf kale noocana leedihiin. waa aaya min aayaati illaahi, sida samaawaadka iyo dhulkuba ay aayad u yihiin. markaasaa laakiin ilaahay wuxuu tilmaamay aayaddaa garashadeeda inta gartaa inay yihiin kuwa cilmiga loo qudha. ina fii dalika la aayaatin lilcaalimiina baa ilaahay yidhi. aqoon-yahankuunbaa garta baa ilaahay leeya aayadatan. dadka aqoon-yahanka ah ayaa qiimaha ay leeday garta.
culamadii mantiqu logiku markay ka hadlayaan ablaablaynta makhluuqaadka waxay ku tilmaamaan bini aadamku inuu yahay xayawaanu naatiq xayawaanka nool oo dhan baa inala soo gala dabeetana waxaa lagu sii sifeeyaa inuu bini aadamku yahay maxay xayawaan naatiqa xayawaan hadlaya annutqu iyo alfikru iyo alcaqlu iyo waxaasoo dhammi way isku xidhan yihin ilaahay wuxuu ku tilmaamaya xayawaan hadlaya inuu yahay ilaahay maaha waxaan u jeedaa makhluuqu marka ay ablaablaynayeen waxay ku sheegeen bini aadamku inuu yahay maxay xayawaan naatiq ah idan afku horta qiimihiisa guud halkaasuu jooga inuu ka mid yahay nicmooyinka alla sheeganayo ee laynoo sheeganayo inuu ka mid yahay aayaadka waaweyn ee ilaahay lagu garto subxaanahu wa tacaala inuu ka mid yahay ama uu yahay wixii nebi aadam lagu karaameeyey afku waa waxa bini aadamka ka dhigay madaniyu tabc ama bulshaawi inuu qofka bini aadamkii bulsho ku noolaado afkaa ka dhigay lowlaa aynan isafgaranaynin maynan wada noolaan karneen idan afku waa waxa uu qofka bini aadamka ahi ku cabiro ama ku sheegto wax madaxiisa ka guuxaya sida wax u arko waxa uu dareemayo waxa uu rajaynayo waxa uu ka cabsanayo waxa uu aqoon gudbinayo hadday aqoontay hadday diintay hadday falsafatay hadday cilmi tahay waa af waxa lagu gudbiyaa wama arsalna min rasuulin illa bilisaani qawmi ayaa ilaahay ku tilmaamaya rasuul maanan soo dirin ilaa iyo waxaan ku soo darray maxay lisaanu qawmi tolkii waxay ku hadlayeen wuxuu ka mid yahay afku baahiyaha nicmooyinka markaad weydo ugu qaalisanaad garanayso qof afla markaad aragto maxaad dareentaa afka haddii la beelo dhaguna way raacaan oo hadalka markaad weydo dhagaana waa la waayaa dabeetana waxaad noqonaysaa abkam qof aan hadlin waxna maqal intee in leeg baad dareentaa qofkaan nicmada ka maqani inay leegtay qofkaan kula hadli karayn oo ku maqlaynin oo waxaad sheegaysa dhegaysan karin oo isagu waxa uu dareemaya aan afkiisa ku cabiri karin afku markaa waxa inaga dhigaya inaynu isu soo hilowno bini aadamku xataa hadduu hadalka waayo cid uu la hadla markuu waayo waa xabsiyada uga adag bini aadamka marka la xidho jeelasha gudahooda xabsi kala jiro jeelka ku sii dhex yaalla oo saliska la yidhaahdo zanzaanaadka sheelooyinka qolal yaryaroo kale oo xabsiga ku sii dhex yaalla qofka xabsiga gudihiisa wax ku sameeya ama qofka dawladdu ay rabto inay karantiinmayso siyaasiya ama waxaasiya aan la rabin afkaartiisu inay faafto ayaa waxaa la yidhahdaa sheeladaha lagu xidho salkaa gaarkaabaa lagu xidhaa markuu qofku waayo cid uu laha salkani muxuu xabsiga kale kaga gedisaya walba waad xidhnayde xabsiga kale noolaa jooga aad la hadlayso kan laakiin marka keli lagaa dhigo waa qolaad keligaa fadhiyayso waxaad waayaysaa wixii aad la hadlaysay dadka badh baa ku waasha badh baa isla hadla xabsiyadii soomaaliya waxaad arkaysaa nin weyn oo qaylinaya keligii markuu ciduu la hadla waaye baahida hadalku ay qabatay idan insaanku hadalka kama maarmo hadalku wuxuu kaloo yahay qofka waxa huwiyada siiya huwiyadu waa identitygu waa aqoonsigu soomaalidu maxay xoolaha ku garataa summad baadisooc sawrac bay u yeelaan ay kaga soocaan xoolaha kale inaanu kaga darsamin afku waa summadda bini aadamka kala soocda waana raabitata waxa dadka isku xidha dib baan masaa'ilkaa ka tilmaami doonaa afku wuxuu kaloo yahay ummadda taariikhdeeda afbaasida haddii dad afkoodu lumo taariikhdooduna way luntaa dadkii afkooda la helo inta badan ama qoraalladay qoreen wax laga akhriyi karo taariikhdooda wax badan baa laga gartaa idan afku wuxuu dadka u sidaa taariikhda uu leeyahay afku wuxuu yahay bay yidhaahdaan
وويلكا culture waxay yiraahdaan ama thaqaafada dhaqanka iyo hidaha iyo xadaarada iyo ilbaxnimada ummadi leeday weelka sida waafkeeda haamaha lagu dhaamiyaa ee dhaankaasi uu ku raran yahay waa afka dadku uu leeyahay ummadii afkeedu lumaa dhaqankeedii iyo xadaaradeedii iyo thaqaafadeedii iyo aqoonteedii iyo afkaarteedii iyo waxay haysato dhan baa luma afku inta marka la soo dhaafo wuxuu kaloo leeyahay qiimo fanniya iyo mut'a jamaliya qiimo fanniya siiba qaybtiisan adabka ah wax dhagta bini aadamku ay ku raaxaysato gabayle heesle wixii la noocale maansale oo dhan dhamaanteed leh jamaal buu leeyahay qurux dadku inta badan marka hees la sheego muusiga ku soo degdegay anigu muusiga ma warramayo luqan ka warramaya yani waa afka la inaga qalday kamid way muusigu isticmaalku la socday Soomaalidu isticmaalka horti waxba ma tumi jirin bigilkii ugu horeeyay ee la tumo hindi yaro la socda ingiriiska baa watay cuudadkii ugu horeeyayna kuwii cadan ka soo noqday baa watay idan isticmaalka iyo waxa la tumaa wada socday dhaqankii Soomaalidu hees uu lahaa mid gaal lagu caraabiyo iyo mid lagu arooriyo iyo mid caruur loogu heesay iyo mid caana lagu lulo iyo mid maqal lagu raacaba waa lahaa laakiin kuma jirin waxa la tumo oo dhamay walidalik ayaa aqoon-yahanka nimanka falsafada iyo mufakkiriintu marka ay ka warramayaan qowmiyaadka waxa la yiraahdo waxay yiraahdaan qowmiyada la sheega dowrka ugu weyn waxa ka ciyaara afka saadaradeed buu leeyahay مثلا filosofarka Harder la yiraahdo Almaaniga Jarmalka in lughatu al-aba'i wal ajdad afka abayashi iyo awowiyadu waa makhzin waa meesha lagu kaydiyo shacabku wuxuu leeyahay kayd aqooneed iyo taariikheed iyo falsafeed iyo diineed iyo dhaqameed waxay bulshadu leedahay halka lagu kaydiyaa waa afka buu leeyahay waa ruuxda ama qalbiga shacabku uu leeyahay buu ku tilmaamaya fakhtan mid kale oo la yiraahdo ayaa wuxuu leeyahay qowmiyada la sheega afbaa u ah raabidka ama xadhiga adag ee isku xidha idan luqadu waa jaamica raabita bay yiraahdaan waa waxa dadka kulmiya Soomaalinimadu waa maxay marka ya Soomaaliya ma inaynu islaam nahay baa dad badan oo muslimiin ah jira ma inaynu madow nahay baa dad badan oo madow baa jira ma inaynu sandhuuban nahay baa dad badan oo madow oo sandhuuban baa jira maxaynu kaga soocannay maxaad kaga gadisantay oramada xabashida ereteerida suudaanta noobiyiinta dhammaantood in badan oo ka midi muuqaalkana waa ku eegayeen waana sandhuubayin waana madowyin in badan oo ka midina waa muslim haddana waxaynu leenahay inaga Soomaaliya la yiraahdo maxaynu inagu Soomaali u noqonnay ee iyagu noqon waayeen waa afka sida waxa ka dambeeyo oo dhan ee dhaqan iyo hidde iyo culture iyo waxa soo dhan afka sida maantaad afka lumiso waxaad lumisay ma garanaysaa waxaad lumisay qowminimadaadii waxaad lumisay intisaabkii aad u intisaabisay qowmiyadda Soomaaliyeed ma aha DNA heredity laga qaadaya maaha ee waxay tahay maxay waa luqadan culture iyo dhaqanka iyo hidaaya waxa kanoo sida haddaba markaynu yiraahnaa afka hooyo bay yiraahdaan mother language mother tongue luqati lum waxay yiraahdaan waa afka aan dugsiga loo tagin waa afka laga barta maxay guriga ayaa laga bartaa dugsi looma tago waxay yiraahdaan waa afka qofku uu ku hantiyo dhaqankii iyo dhaxalkii iyo hidihii aabayaashii iyo awowyadii iyo bulshadu ka tirsanaa waxay yiraahdaan waa afka lagu gudbiyo aqoonta iyo waaya aragnimada ummada ay leedahay waxa la yiraahdaa waa afka isku xidha bulshada yaryarkeed iyo waaweynkeedu ay isugu gudbiyaan waxay yiraahdaan waa afka dadka isku aragtida wadaaga ay xambaarsan yihiin sida awgeed ayaa مثلا United Nationku
2003 waxay soo saareen xeer ay leeyihiin qurumaha madoobay arrimaha hiddaha iyo dhaqanka ee dunida aahaarta la ilaalinayo qalabka marka laga yimaado kuwa ugu muhiimsan waxa ka mid ah bay yiraahdeen afafku waa aahaar bini aadamku uu leeyahay oo u baahan bay leeyihiin in la dhowro oo la ilaaliyo waayo waa dhaxal iyo hiddad leeyahay waa aqoon iyo waayo aragnimadii dadkaasi ay lahaayeen agabkiiyo weelka sida oo Soomaaliya waxay taariikh leedahay oo dhameefkeedu ku jira agab iyo taariikh khaas ah bale waxay sharafti iyo akhlaaqiyad leedahay afkeeda sida oo midalan afafku oral society-ga inta badan waxay ummaddu hidiye dhaqan lahayd meelaha laga baadho waxa ka mid ah midalan mahmaahdu waa maxay waa qisad dhan oo dhacday oo jumlad lagu soo koobay jumlada fahmi maysid haddaanad qisada fahamsanayn marka qisad dhan oo dhan ayaa waxa lagu soo koobayaa jumla waaxida la yiraahdo mahmaah taariikhda ummadda qaabka loo qoro waxa ka mid ah mahmaahiyaha waxa ka mid ah gabayaaga waxa ka gabayada la tiriyo waxa ka mid ah heesa waxa la tirinayo dhame waxay suntayaan waqtiyada ka mid ah dadkaasi dhaqankii iyo hiddihii iyo wixii uu haystay hadda waxay leenahay afku waa identity-gaagi waa aqoonsigaagi waa sawracaagi waa sumadaadi waa baadisocdaadi guud ahaan bini aadamkaynu ka midnay waxaynu ka sii midnay qolo la yiraahdo muslimiin laakiin muslimka waxaan kaga sii soocnahay markaa waan gaar ku ahay af caawa muslimkii kale ima hor fadhiyo maxay idinku hor fadhidaa muslimkii kale magaalada idinla deganaa ilama joogo idinka ila jooga waxa idinka soo soocay ee aan wadaagnaa waa afka kan afka haddaad lumiso markaa ama uu kaa lumo waxa weeyaan collective memory-gii ummaddu ay lahayd oo dhan ayaa lumaya haddaba haddii uu afku yahay sida aan sheegnay fingerprint-kaaga yacni dadka marka la kala soocayo suulka la yidhaahaa meel saar soo maaha suulka markaad meel saarta macnaheedu waxa weeyaan dunida dadka ku nool oo dhan wax kuu suul eeg la heli maayo ama isha iminka la yidhaahdaa meel ku eeg dunida dadka ku nool oo dhan wax kuu ileeg la heli maayo waa fardi markaynu bulsho noqonno maxaa fingerprint inoo ah afka inoo ah ka bulsho ahaan ka mujtamac Soomaaliya fingerprint-ka aynu leenahay markaas baadisooca dhabta aynu leenahay waa afka kan idan afka haddaad tuurto waxaad la mid tahay halkuu ninka Soomaaliga lahaa gaadiidku qaadiya haddaad gelin laxaad weydo gurgurshaal lama shidhaystiyo hasha geela ka irmaana buu yidhi yani haddaad baahato waxaad rarta weydo awrkaaga gurgurshaaga soo ma taqaanin yani awrta marka la layliyo ee dabeetana uu reeray noqdo ee la raro awrka hayinka ah ee la saaro reerka ubucdiisa weelkiisa caruurtiisa oo sanqadh ka didin weeyaan sanqadha isagu kama dido qaalinka see buubaaga ahi markuu sanqadha maqlaba haddii reerku daasadaha iyo digsiyada uu sito uu saaro dee wuu buubaya marka waxay Soomaalidu tilmaamayaan awrkaaga gurgurshaa sinaba laysagama gowraco gunta lagama jaro geed hadduu kuu gabaad yahay bay yidhaah geedka quraad harsato dee lama goosto UNESCO qaramada midoobay qaybteeda waxbarashada iyo aqoonta ku saabsan waxay u qoondeeyeen 21 February inay noqoto maalinta dunidu ay u dabaaldegto cid waliba afkooda hooyo si dadyowga dunidoo dhan loo xasuusiyo afka hooyo iyo qiimaynta uu leeyahay report ama warbixin ay soo saareen 2013 waxay ku tilmaamayaan inay lagama maarmaan tahay ilmaha yar guriga iyo dugsiga bilowga ah inuu afka ku dhigto si uu xijin kara bay leeyihiin luqadaasi xataa maanta reer galbeedku aragtiyo badan ay ogaadeen waxay leeyihiin
qofka bilingualka aba ka aqoon fiican bay leeyihiin halka luqo qura yaqaan saadaradeed afka hooyo qofku hadduu si fiican u barto bay leeyihiin waxa fudud inuu afafka kalena si hawl yar u baran karo hadduu afkaaga hooyo liita bay leeyihiin waxay u badan tahay afafka kale aad barataana inayna laangara noqdaan iyana inay liitaan sida ogeed bay waxay leeyihiin waxa habboon in qofka marnaba aan laga luminin afku doonaya kale ha barto ilmaha yar carruurta bay leeyihiin intaasoo lagu wada baran karaa mar qura laakiin kii koowaad ee wax ku fuudhsanaya waa inuu haystaa bay leeyihiin oo guriga kala yimi kii koowaad ee fuudhka u ahaa ee luqadka kale marka loo dhigayo halbeega ahaayee uu ku miisaamayo luqada kale uu baranayo waayo luqadku system naxwe iyo sarfiya ay u dhisayin baa jira hadduu kii gurigiisa si fiican u garanayo way fududaanaysaa kuwa kalena inuu si fiican u fahmo haddaba waxaan tilmaamaynaa wuxuu yahay haddii luqadu ama afka hooye uu qiimaynta intaa leeg leeyahay maxaa loo baahan yahay si aynu u ilaashanno afkaas afka ma af cilmiyaa jira iyo af aan cilmi ahayn yani dadka badh baa waxay u haystaan af ingiriisiga hadduu barto inuu cilmi bartay af soomaaligaasi hadduu barto inuu meel cidlaa jooga dee socakaa maaha af cilmi la yidhaahdaa ma jiro afafku af ahaan waa siman yihin marka sida guud loo eego dabcan luqada masaai iyo luqada ingiriis ma kala fiicna laakiin maxaa dhaca afku bay yidhaahdaan waa waxa lagu qoro cilmiga waana waxa lagu qoro jahliga ummadda af kale hadday cilmiga ku qortana afkeedu wuu ballaadhaa ummadda af kale hadday jahliga ku qortana wuu yaraadaa idan afku inuu ballaadho waxyaabaa keena si taasi ay u dhacdo ummad kastaaba waxay tijaabisaa afkeeda inay wax ku qorato wax ku barato si afkeedu uu ballaadho aqoonteedu ay u korodho ummad waliba waxay tijaabisaa afkeeda inay wax ku qorto oo ballaadhiso ciddii awoodi weyda inay afkeeda wax ku qorato rag baa kooda wax ugu qoroo ku sii ballaadhsada ciddii awoodi weyda keeda inay wax ku qorato cid baa kooda wax ugu qorto oo u ballaadhisa haddaba afafka waa la naaxiyaa waana la ballaadhiyaa waana la koriyaa afku iskama koro uun dad kale ayaa koriyo oo naaxiyo oo quudiya afku markuu af cilmiya noqonayo wuxuu noqdaa af biira luqada ingiriisi asalkeeda marka la eego waxay dhahaan rootska luqa ingiliisiya 800 eray meelaha kama badna bay yidhaahdaan bahashan dunidoo dhammi marka ku hadlaysaa laakiin way naaxiyeen dabeetana way ballaadhiyeen afafka qaababaa loo naaxiyaa qaababka loo naaxiya waxaa ka mid ah eray bixinta mustalaxaadka soo ma taqaaniin eray bixin terminologygu waa maxay waa eray afkaaga ka mid ah oo macno lahaa oo intaad kala jiiddo macno kalena aad ku shubto eraygu hal macnuu lahaa marka hore afkaaga markuu joogay laakiin waad kala jiidday dabeetana macnayaal kalaad ku gurtay dabeetana wuu ballaadhay maalan waxa laaliya waxa sciences terminology ay leeyihiin physics chemistry biology waxa terminology ay leeyihiin waxa laaliya waxa cilmiya art waxa terminology ay leeyihiin waa afkiyo la ballaadhiyay eraygu luqawiyan markaad wax dhiganayso waxa lagu yiraahdaa eraygani luqatan waa caynka wastilaahanna waa luqatan taasun baa asalkiyo afku u ahaa laakiin macnahan kale oo dhammi waa macno lagu daray oo lagu ballaadhiyay si uu afku u ballaadho sida awgeed مثلا soomaalida dadyowgii ugu badnaayay afkooda inuu koro ka qayb qaatay waxa kamid ah aniga aragtidayda 3 group koo waxa ka culimadii Soomaaliyeed hore waxay isku dayeen afka Carbeed oo af aad u ballaadhana inay siin karaan tarjamo Soomaaliya
diinta islaamiga oo kutubteedu ay aad u ballaarantaa u macno weyn tahay inay siin karaan tarjama af Soomaaliya oo ay u bixiyaan laqabe waa la laqbaynayaa baa la leeyahay sheekha Soomaaliyeed markuu kitaabka dhigayo wuu laqbayn jiray laqbadu waxa weeyaan eray kasto meesha ku qoran eray Soomaaliya u dhigan buu isku dayayaa inuu keeno hadhow xirtu markay ku ceshanayso hadduu ninka xerawga ahi macnihii sheega laakiin eraygii uu sheekha sheeg waayay wuxuu odhan jiray carabkii sheekha maaha maxaa looga jeedaa carabka sheekha yacni waa mustalaxaad ay kala dhaxleen cilmi fudud maaha waa mustalaxaad waa eray bixin ay soo kala dhaxlayeen intaasoo qarni oo ay xijinayeen waa afkii Soomaaliyeed ay ballaadhiyeen oo ay macno cusub ku soo kordhiyeen yacni ninka faqiiha fiqi dhigaya markuu yidhaahdo hadduu faduuli caqdi gunto faduuli bannaan joog hadduu gunto bay dhahaan bannaan jooga ma taqaana yacni waa ninkii aan qadiyadda isagu lahayn waa mustalax cusub oo uu jideeyey ninkan sheekha ahi idan culammadii Soomaaliyeed ee hore ee isku dayday culumtii la dhigi jiray oo dhan inay af Soomaali ku dhigaan waxay guda ballaadhiyeen oo naaxiyeen afkii Soomaaliyeed qolada labaad ee dadaashay inay ballaadhiso waxaa ka mid ah warbaahinta dadkii ka shaqayn jiray hore maaha kuwan dambe warbaahintii hore ee Soomaaliyeed ama kuwii Ingiriiska u shaqayn jiray BBC ha noqoto ama kuwii idaacada Soomaaliya u shaqayn jiray ha noqdo waxay isku dayeen inay ballaadhiyaan oo af Soomaaliga macnihii uu lahaa mooyaane macno dheeraad oo kale ay ku daraan tusaale مثلا waxay isweydiiyeen erayga violence al-unf maxaynu ku tarjunaa ninkii warba laga rabaa inuu sheego warku af Ingiriisi ku qoran yahay af Ingiriisiga violence baa ugu taala muxuu ku tarjumayaa af Soomaali markuu ku sheegayo muxuu oran way isweydiiyeen dalmar nin la yiraahdo eray keenay kiibay qaateen gacan ka hadal buu bixiyay luqadeennii hore Soomaaliyeed gacan ka hadal kuma jiro ama maynan maqal gacan ka hadal laakiin waa afkii oo la naaxiyay hadal la weynu naqaanay gacanna weynu naqaanay laakiin markii la naaxiyay ee terminology laga dhigay cunfi ama violence buu noqday mesela idaacadu waves bay ka hadashaa mitir band lagu xisaabiyo waxay tarjumeen maxay ku tarjumeen hirka badaynu naqaanay inagu idaacada BBC oo kala hadlaysa hirarka dhaadheer iyo hirarka gaaga waxa soo maqashaan waa waves baa leedin tarjumay dabeetana erayga hir macno ku lahaa af Soomaaliga laakiin marka iminka la joogo warbaahinta hirku macno kale oo Soomaaliga ku soo kordhay buu tilmaamaya mesela waxaad ka maqlaysaa iyagoo leh dayax gacmeed awowiyadeen satellite may maqalde mana jirin waa eray cusub oo la samaystay waxay u baahdeen inay iyana Soomaaliga soo kordhiyaan dabeetana waxay u bixiyeen maxay dayax gacmeed mesela apartheid midab takoor Soomaalidu isku midab bay ahayd midab takoor wax la yiraahdo mayna noqonin dhaqankeena kuma jirin waxa la soo bixiyay marka in midab takoor oo kala la tilmaamo erayada noocaas oo dhami barwaaqa sooran hanti wadaag hanti goosi maxaa la yiraahdaa waxa soo dhami waa afka wax lagu soo kordhiyay macnaheedu waxa weeyaan waa afkaagii oo la ballaarinayo wax jira laga dhigayo waxa kamid ah dadyowga ballaadhiyay tarjamadii dawladii Soomaaliyeed siiba macallimiintii dugsiyada sare ay u sameeyeen iskuuladii af Soomaaliga loo bedelay iskuuladii af Soomaaliga loo bedelay waxa la tarjamay waxa la aliyo wixii af Ingiriisi ku qoray la dhigi jiray ayaa luqad Soomaaliyeed loo raray maca mustalaxaadkii terminology-na isagoo la rarayo مثلا like circuit waxa la yiraahdaa halka wareega isku xiriirsan مثلا kan laambada ilaa iyo switchka inta isku xidhan waa one circuit waxay u bixiyeen mareegta ma taqaaneen marka hore qol iyo mareegtu waa tii aynu maqasha marka ariga maqasha laga sooco de mareeg ba meel loogu xidhaa waa xadhig wareegsan oo meel loogu xidho dabeetana qoolalba ku xidhan mareegta neef waloo yaroo maqalaba madaxa loo geliyo lagu ilaaliyo inta loo soo deynayo neefkii la lisayay idan mareegi af Soomaaliga macnay ku lahayd laakiin eraygii intay soo xambaareen bay waxay ku kordhiyeen
inuu macno labaadna yeesho oo la fahmi karo oo ah circuitkii waxa laaliya waxa markaa physics iyo science iyo la dhigayay oo dhan sidoo kale ay u sameeyeen mustalahaadkii bay ballaadhiyeen idan waa af Soomaaliga oo la ballaadhinayo kii dawladda iyo maamulka iyo idaarada la ballaadhiyay مثلا waxaad maqlaysaa agaasime maamule gudoomiye maareeye xog haye dawladda dhexe dawladda hoose waxaad maqlaysaa erayo kugu cusub dambi baadhe xeer ilaaliye waxa soo dhameeyay waa mustalahaad idaariyo la tarjumay eray bixintii idaariga ahayd baa la tarjumay erayadani waa af Soomaaliga ka mid yihiin maarayntu waa eray Soomaaliya hogaamintu waa eray Soomaaliya gudoomiyenimadu waa eray Soomaaliya xeer iyo ilaali waa eray Soomaaliya dambi baadhe waa eray Soomaaliya hanti dhowr waa eray Soomaaliya laakiin markuu mustalax noqdo terminology markuu noqdo waa macna cusub oo af Soomaaliga ku kordhisay idan afku qaabku koro waxa kamid ah in cilmiga lagu qoro oo ah inuu yeesho terminology ama mustalahaat ama eray bixin af ingiriisiga ballaadhka aad arkaysa uu muu dhalane markii terminology-go dhan lagu daray ayuu wuxuu noqday maxay af tiro badan oo ballaadhan waxa kaloo afafku ay qaataan inay haddii luqadoodii ay wax ka waayaan inay amaahdaan waa af oo dhan waa lagu yaqaana luqada carabiga markaad deganayso wax lagu odhanayaa ereygani waa erey dakhiila ama waa erey meel kale laga soo amaanaystay حتى الله يسويديو قرآن كيريه كجرو عربي ملك اللي لقى سو أمانيستو عربيو بملك كميديان سكما مدها إذن ولا أمانيسان كرا مركت سو أمانيستنا حركي نحوه يصرف أفكار إلى هذا المريا دبتنا وح النقطة إري كمده أفكار كبيري أسماء ذا لأمانيستا أنت بدن وحي aanad markaa hidde iyo dhaqan u lahayn afkeennu baadiyaha markuu joogo waa qani waa afafka ugu qanisan dunidu ka mid yahay waa afafka ugu gabay badan buu dunida ka mid yahay markuu xaggaa joogto laakiin marka xadaaradda magaalada loo yimaado dee dadku ama erayada way amaahdaan ama kuwooday dhaliyaan kuwan yaa dhaliya guddiyaa dhaliya dawlad waliba leedahay oo afafka u xisaabsan oo erayga cusub ku kordhiya eraya cusub amaahda af Soomaaligu ma inaga qura wax amaahna ma inagaba wala inaga amaahday ma umaleynaysa ingiriiska inaynu afka badh amaahinay ma idin la tay iya ba amaahina xayawaanaad jira geeska Afrika degan Soomaalidu magac u leedahay waana afafka gaaleed oo dhan magac u lahayn way dhulkooda ma joogo markay yimaadeen ay arkeen erayaynu inagu u sheegnay bay qaateen marka haddaad imka dictionary-ga baadho af Ingiriisi ama Jarmal ama Danish ama kana eray Soomaaliya caadi ah ku qoran garanuugta ma taqaanin xayawaanka la yiraahdo garanuug waa xayawaan Soomaaliyeed oo la yaqaan Soomaaliya xayawaankan deerada ka weyn ee luqunta dheer leh ee dhabarkana ku leh ee saadalka waxaad moodo in koora saarayaad moodo garanuugta xayawaanka la yiraahdo in dictionary maanta dunida yaala hadaad baadho xataa luqada carabiga garanuug baa la yiraahdaa garanuug bil ghayn bay qoraan kuwa kale oo dhamina inagu gaabay noqoraa iyagu kaaf bay qoraan af Soomaaliga ma jiro eray kaaf ku dhamaada iyagu kaaf bay ka dhigteen markaa garanuug bay u qoreen waa luqada Soomaaliya asala idan ingiriiska waxbaynu amaahinay ama gaalada afkeena badh baynu amaahinay inay iyagu haynin inaynu iyana wax ka amaahana ceeb maaha laakiin waa inay martaa systemkii luqeed ee naxwiye sarfiyeed ee afkan uu lahaa waa inay martaa haddaba waxaan leenahay afka haddii cilmiga lagu qorana wuu ballaadhaa oo mustalahaad ku yeesha haddii amaahdiisa amaah macquul ay noqoto loo soo qaadana inta badan wixii qalab inoo yimi record iyo maxaa la yiraahdaa idaacad iyo magacay inoogu yimaadeen umaynu iska siinay maynan bedelin hatta waxa laga yaabaa dharkaynu xidhanno weelkaynu wax ku karsanno carabta Yamanta iyo meelahan bay inoogu dhawaa waa wada af Yamani waa diric iyo maqla iyo tisti iyo wuxuu dhami waa af Yamani marka eegta dharka la xidho shalmad maxaa la yiraahdaa malkhabad waxa gabadha Soomaaliyeed mara xidhato dhan waa af Yamani waxa aynu dhar xidhanaana iyana waa la mid marka laga reebo labada go aynu gaar u leenahay oo idan afka waana la ballaadhin karaa waanu dhiman karaa oo haddii la isticmaali waayo oo la qori waayo oo lagu hadli waayo wuu sii dhintaa
haddaba waxaan uga dan leeyahay aan eraygan idinku tilmaamaya waxa weeyaan war af cilmiyi ma jiro ee dadku cid waliba iyada afkeeda ama cilmi ka dhigta oo cilmiga ku qorta ama jahliga ku qorta tusaale ahaan dawladda maanta dunida ku nool afafka marka la qiimeynayo afafka qaar waxa la yiraahdaa waa luqa munqarida waa luqa dabar gooday qaar waxa la yiraahdaa waa luqa mutaakila waa luqa cunmaysa qaar waxa yiraahdaan waa luqa muhtadira waa mid go'aysa haday dhamaanaysa naftu ka baxaysa afkii laga shaqeyn waaya heerarkan buu maraa wuu dhintaa dad yowga afkooda u dadaalay dawladda waxay soo nooleeyeen af aan hadda lagu hadlaynin ay dib u soo nooleeyeen dabeetana waxay ka dhigeen af cilmiya oo dawlad dhami ku shaqayso oo systemkeedo dhami ku shaqeeyo oo waxbarashadu ku shaqayso bal aqoomaha ugu dambeeyay maanta dunida technology-ga la soo saaro waxyaabo kamid uu ku qoran yahay iyaga afkooda yahuudda nimanka la yiraahdo Israel dawladdan hadda la yiraahdo ibrigo waaf dhintay buu ahaa yahuudani waa shataat meelaha laga keenay dadaan isku afahayn bay isu yimi mid Poland ka yimi mid German ka yimi mid Ingiriis ka yimi mid Caraba ka tagay oo kala wada afa dabeetana dawladda af cusub baa loo sameeyay luqa al-ibriya al-qadiima baa dib loo soo nooleeyay dabeetana waxa laga dhigay inuu noqdo af dawlad iyo system iyo waxbarasho iyo jaamacada ay ku socdaan ilaa iyo maanta laga yaabo tiknoolajiyada buxuusta ugu dambeeya wax ka mid inuu ku qorayo af cibri idan waa dad afkoodii dib u afuufay oo nooleeyay dad yowga qaarna afafkoodu way sii dhimanayaan United Nations waxay tilmaamayaan boqolkiiba 50 afafka maanta lagu hadlaa dhawaan bay dhiman doonaan bay leeyihiin boqolkiiba 96 ilaa 7,000 oo luqa maanta dunida ka jirta bay dhahaan boqolkiiba 96 afafka kamida 4% of the world population ma ku hadla that means afafka intii ugu badnayd dad aad u tiro yar ayaa ku hadla waxay tilmaamaan inuu dhimanayo laakiin dadka afkooda wax ku bartay 19 wadan ee dunida technology-ga hogaamiya waxay yiraahdaan waa 19 wadan oo qolo waliba afkeeda wax ku dhibarato yani in dunida technology-giisa wax ka hogaamin karta waxay asaas uga dhigeen inuu yahay maxay 19 wadan ee dunida ugu horeeya buxuusta cilmiga iyo technology-gu afkooda jaamacaadka iyo wax walba ku dhigaan 500 ee jaamacadood ee dunida ugu sareeya oo 35 dal ku yaala waxay wax ku dhigaan afkooda yani afkooda markay wax ku dhigaan bay waxay noqdeen maxay jaamacada la yaqaano hadaba ayuha alhibba waxay afku waa dhintaa haddii dadkiisu ay nolosha u diidaan waa weydooba hadday dadkiisu naaxin waayaan waa koraa oo waa naaxaa oo waa weynaadaa hadday dadkiisu aqoon-yahan ay noqdaan ama ay wax bartaan dawa waxaynu u baahannahay afka aynu ku hadalno ee af Soomaaliga ahi wuxuu ka mid yahay waa af qaniya marka afnimadiisa loo eego afafka maanta sii dhimanaya waddankan ay idinku joogtaan waxay yidhahdaan waxa ka mid ah qabiil yaakuu la yidhaahdo oo masayda la dega waxay yidhahdaan afkooda saxa wax ku hadli kara hadda waxa ka nool 9 qof bay yidhaahdaan ilaa 4,000 oo qof weeyaan afkooda saxa wax ku hadli kara bay yidhahdaan 9 qof baa nool 9kaasi maanta ay dhintaan bay yidhahdaan afkaasi uu dhimanaya masayda ka xoog badatay bay yiraahdaan ay xidid iyo dagaan bayin dabeetana qabiilkii dhamaa wuxuu u guuray sidii loo waday af masay buu u guuray oo sheekhu lahaa ingiriiska mayay u dhigmaan qolay liqaanbo afkoodii qaateen koodiina wuu dhintay kuwa kan waxa aan luqadka aan dadkoodu qorin ama cilmiga ku qorin marka qof weyni ka dhintaba maktabadaadii qayba gubatay imka af Soomaaliga waa sida waayelkan soo gaadhnay
afkay ku haddi jireen dadka ku hadlaa wuu yariyay hadda marka qof dhintabana maktabadda badh baa gudumay waa maktabad bookska yaalla maalinba mid uu ka gubayo maalin kasta oo oday waayeeloo Soomaaliyeed uu dhinto hal buugo ka mid ah Soomaaliga gubtay haddii aan dadka Soomaaliga ku hadlaa aanay afkooda dib u noolaynin darsigan oo dhan waxaan uga dan leeyahay marka laba wax horta af cilmiga ma jirayaan leedin gubaysan oo inta nin kale afkiis ku xariifisa moodin inaad wax baratay ee afkaaga hooya ku noqdo afkaaga rasmiga aad ku hadasho ee ubadkaaga iyo carruurtaada iyo gurigaaga aad ku barto waxaanu sidaa dhaqan iyo diin iyo aqoon afafka muslimiintu ka mid yahay walidaalika afka Soomaaliga ay luqa carbeed iyo diin tira badan baa ku dhex jira waa af diimeed waa ka labaade dunida meel kasto aad tagto haddaad af Soomaali ku hadlayso tawaasul waa raabita adiga iyo bulshada isku xidha waa wax keeni kara inaad waddanka dib u tagi karto dadkaaga iyo waddankaaga aad ku xidhnaan karto dhashaadu hadduu afku ka go'o Soomaalinimaduna way ka go'day wadannadana aad degantiin Soomaaliya deganaan jirtay Soomaha aad u tiro badan oo hore oo timi afku markuu ka sii go'aba xidhiidhkay la leeyihiin waddanku wuu sii go'aya waayo dadka raabitada isku xidhee ka dhaxaysa waa af idan waxaan leenahay qowminimada Soomaaliyeed maqasha waa afkan inta afkaasi jiro ay qowmiyadaasi jirta inta afkaasi uu horu maray bay qowmiyadaasi horu maraysa inta afkaasi uu af cilmiya noqdo bay waxbarashadoodu koraysa inta afkaasi af cilmiya noqdo ayay si fudud inay wax u bartaan fududaanaysa sida awgeed dadkiina qurbaha u soo baxay ama dhulalka lagaga tirada badan yahay yimi idinka xil gaara idin saaran oo ah afkan iyo sida u ilaashan lahaydeen siiba ubadkiina saa ugu gudbin lahaydeen waxa rumaysnaydeen waxa dhaqan lahaydeen waxa hidda lahaydeen waxa diin haysateen ubadkiina ugu gudbin lahaydeen siday u noqon lahaayeen dad Soomaaliyeed oo mar uun rajaynaya waddankoodii iyo dalkoodii iyo dadkoodii inay wax ku kordhiyaan ama wax ku kobciyaan marka warku wuxuu ku kooban yahay afafka gaaladu afafka bini aadamka kale kama fiicna kamana tayo badna kamana ballaadhna laakiin waa sida afka cidda lihi ay u kobciso مثلا duulalka afkoodu dhiman lahaa lawlaa aan diintu jirin carabta ka mid ah ummad dhan oo afkeeda aan kobcinin weeyaan dawladaha iyo waxaan ka jiro dhan marka dunida meel kasta aad tagto inaad shaqaysaa waxay ku xidhantahay inaad afkooda barataa cidi shaqo ku siin mayso mujarrad dafar si aad u xoogsato waa inaad waxoogaa soo towtowsataa kolaad inta suuqa lagu maro soo baratana waa inaad wax soo barataa si aad u shaqaysan karto carab hadday odhan lahayd wixii dad soo maray waddan carbeed qofkii shaqo rabaa waxa qasaba in luqada carbeed duniduba maanta af carabi ku hadli lahayd soo malayn mayse ilaa ingiriisintaasuun buu yidhi duniduba af ingiriisay ku hadashay carab dunidoo dhan ba u shaqo tagtay siba khaliijkan hadday sharti ka dhigi lahaayeen shaqada quro inuu af carabi lagu barto dunidu maanta af carabi ku hadli lahayd bay noqonaysaa idan dadkii afkooda danayn waaya waxa laga yaabaa maanta khaliijka markaad tagto inaad af ingiriisi ku hadasho in lagugu ixtiraamo haddaad af carabi ku hadashana in lagulaba hadli waayo sida afkooda iyagu u baahdileen amaba haddaad ku hadasho karay ku hadlaan urduuguna fi iyo afar erayoo daba socda haddaad tidhaahdo un carabkuna intaasunbaabu ku hadlaya yani waa dad raba inuu afkooda u dhinto lowlaa kitaabullahina wuu dhiman lahaa haddaan ilaahay kitaabkiisa iyo sunnada nebi moxamed ku qorayn oo dadka muslimiinta inay diin bartaan aanay ku qasbanayn oo cid waliba inay dib u tix raacdo siibaweyhi iyo akhrido iyo maxaa la yidhaahdaa khaliil ibnu axmed iyo ibnu aljinni iyo ibnu alfaris iyo ibnu alcali inay akhriyaan haddaanay ku qasbanayn wuu dhiman lahaa ee inuu noolaado waxaa hayaa waa diinka kan diintan islaamiga abaa ka dhigtay inuu af xayaya oo nool oo la akhriyi karo oo maantada qur-aankii nebi maxamed ku soo degay sidiisa inta loo akhriyo la fahmi karo waa ilaa af ingiriiska maanta 100 sano ka hor shakespeare in lagu fasiro mooyaane aad akhriyi karin waayo wuu tatawuro wuu isbedelay
laakiin kan inuu saa isu bedelo waxa ka ilaaliyay waa usuusha ay culamadii naxwa iyo sarfigu u dhigeen afafkana waxa ilaaliya waa naxwaha formal language ka asaga dhimanka af ingiriisi tabartabada doonto dunida waad kaga hadli kartaa meel kasta laakiin markuu qoraal noqdo system quru leeyo loo qoro waxaad ku qasbantay in systemka loo qorayo waxa ku ilaalinaya inuu systemka sax noqdo grammarka loo dejiyay afafka aan grammarkoodu qorayn tatwiirkiisa bata uu dhintaa dabeetana marka Soomaaligu waxaanu degdeg ugu sii gudbaya ee uu sii lumaya waxa kamida qoraalka aan wali si fiican loo daraasaynin in naxwiisi maanta luqada carabeed lahjaadkan ay ku hadlaan kamay soo hadheen lawla aanay culamadii hore qorin qawaacidatan aan laga talaabi karin ee qof kasto maanta raba inuu af carabi qoro la leeyahay mubtadiya khabarkii baad isweydaarisay haddaan mubtadiya khabarkaasi aanay u qorin way baabi'i lahay idan luqadka waxa xajiye formal ka dhiga waa informal iyo formal language waxa ka dhiga wax weeyaan naxwaheedu inuu qoray kelmadaydu markaa waxay ku koobantay afkiinu yuu idin la liidan dhaqan iyo hidde iyo diin buu sidaa kamana fiicna afafka ana u sii gudbaysaan ama sii jeceshiine kuwa kale lamaana haydin noqdaan af dheeraado aad baratay dad af carabi baranayso dad ingiriisi baranayso dad sawaaxili baranayso af dheeraado aad baratay ha ku noqdo laakiin asalkaagu iyo kaalumin sallallahu alayhi muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam alhamdulillahi rabbil alamin جزاه الله خير الجزاء شيخنا الفاضل الشيخ مصطفى حاج اسماعيل runtii alaga yaaba dadku inay ku kala duwan yihiin muxaadaradan oo kale waa muxaadaro aad u qiimo badan weey qofka Soomaaliga garanaya iyo waxyaabihii garanaya aad bay dareen badan u gelinaysa laakiin qofkeena markii horeba ay luqadu ay ku adkayd alaga yaaba inay macna saas u qiimeyn sidoo sheekhu sheegay weeyaan luqada kama soo haro dadka qowmiyadda ama ummadu kama soo haraan luqado dhaqan haday noqoto diin dhinac kastaba marka xaqiiqatan waa muhiim weeyaan marka nin aan yiri dad iska reebaliyay inagu reeb Mombasa la yiraahdaa aad bay luqadaas cidhiid noogu tahay jiilka soo kacaya laga bilaabo 10 jir ilaa 35 jir ninka jira halkan ku dhashay 35 jirka ah waxa weeyaan af Soomaaligii hooyadii iyo aabihii ay ku dhaleen ay ku hadlaayeen way ku adagtay in badan oo kamid ku adagay bal inayna ahmiyad iyo muhiim weyn ayna lahayn baa laga yaabaa inuu arkaan waxaana waa waalidka weey waalidiinta waxaan leeyahay oo anagu kow ka ahay aanu caruurta af Soomaaliga hala baro af Soomaaliga wali waxaan leeyahay anagu macallimiinta dugsiga quraanka dhiga ha ku soo dareen maada af Soomaali oo cunuga la barahay ha ku dareen maada af Soomaali ah oo loo dhigahay af Soomaali qoraalka la barahayo laga saxayo grammarkii iyo qawaacidkii la barahayo inay ku soo daraan oo hadhow quraanka soo yaqaan af Soomaali qoraalkiisa wixii karanay inta hadda af Soomaali waraaqaha la qorayo inta af Soomaali quman soo qoraysa way yartahay dad waa Sawaaxili buu ku soo qori ama English buu ku soo qori ama Arabi buu ku soo qori waxaas ku soo badi ku soo qoray inta af Soomaali sax ku soo qori ka hata af Soomaaliga isku day wuxuu isku dhax qaldi Sawaaxiligi iyo af Soomaali buu isku dhax dari marka ikhwati fillah arintaas waa arin muhiim ah iskuulaadka tuushanka wada aragtana caruurteena ayagoo iskuulka dhigtaan oo intaas oo saacadood Ingiriiska iyo luqadka ku maqan yihiin baadana guriga lagu qabanayo macallin kale oo Ingiriiska iyo sayniska u dhigi baadana guriga lagu sii qabanayo lagu maalgelinaya iskuulkana wuxuu ku maqnaa intaas oo saacadood gurigiina waxdana waa macallin kale loo sii qabanayo laga daba keenaya hal saac oo af Soomaaliga loo dhigo ma sameeyno lama sameeyno laano qiimo ma uma arko laakiin hadhow cunugu markuu weynaado ayaa arki doonta af Soomaaliga iyo wixii adiga cunugu lidin kala turjumo korkan bi muuqaalkan baad iskaga egtiin shaqo isku meelidina isna waa nin ajnabi ah adigana qof Soomaali ah marka hadhow in lidin kala turjumo yaad u baahantid mid baan waxa qisa dhacday wiil baa hooyadii waxay ku tiri ooyey waxaan rabaa inaan Soomaaliya ku geeyo ku soo guuriyo gabar Soomaali xagga kaaga soo guuriyo شو سيد اللقادي يوحي أبرت وحول أنا صومالي وح ما فهمي كوا ما فهم ياي بتشونتني سواحيل هاللي جوريو كوا ما نقن كوا كرن هياي هلا ويل كوا يقدر
daf bay la tiriyeen Soomaaliya geysay oo halkaasay gabadh reer garas uga soo guurisay ninka waxaaba ma fadhiyaba asaga maxaa yeelay gabadha in la wada hadlaa la rabaa communication maxaa lagu sameeyay gabadh ayadu waxay rabtaa buu dhihi markuu soo yeeyo markaas waxa dhihi sidaas waxaan rabaa dhaniyo wuu leeyahay maxaa adiga markaan hadlaba iga daba hadlaysa way keentay waa loo soo guuriyay waa la keenay markii la keenay gabadhu wuxuu ku yiri dhageyso maama ku soo guursatay anu kuma soo guursanin xagga Soomaaliya waan cabsanahay markaan joogay waan cabsanahay hadda meeshan aan garanahay mid maama ku soo guursatay maamadii wuxuu yiri ayadoo nin ha ku sameeyay anu wuxuu yiri bas way si kasta wiilkii intii leeyahay baa la kari waay waxyaabaha ugu badan oo ka soo sheegtaan waxa isma fahmeenuu marka maxaa yeelay luqadii bayna isku fahmeen dhaqankii bayna isku fahmeen wixii dhan bay ku kala fog yihiin laakiin ninkan adu wiilkan adu luqada garan lahaa hawayaan way isfahmi laayeen marka luqadu waa caamilka ugu xoog badan ee dadka isku soo jiidaya way marka insha Allah ta'ala nimayo luqada ha lagu dadaalo wa rasuul sheekhu sheegay luqad kale ka fiican ma jirto luqad cilmi ana male kolba luqada sida laga dhigo way Soomaaliga markii qoraalkiisa la qoray waxyaabaha ugu badan ee laga faa'iideystay waa in dadkii wada qoraan oo isfahmaan oo nin kasta dantiisa iyo wixiisa uu ku guto baadiyaha la geeyo lagu soo qori jiray haweenka iyo waalidiin iyo dadka duqeyda baadiyaha joogay baa la baray idan qofka xaajadiisa waraaq ku qoranaya markaas magaalada u diri halkaas uu ku soo dangudanaya waa waxyaabaha ugu weynaaba ahaydo maaragtay dadka xiriirkooda aad u sahlay marka nimayo luqadaas dadkeena qurba jooga oo ka soo baxsan aad bay muhiim noogu tahay hadii kale jiilkan soo kacaya isma naqaan Soomaali ma janna igin buu leeyahay Soomaali haddaan barto ma janna ku gali oo Soomaali ma janna ku gali say English ma janna ku geynaya ma ya weeyaan marka insha Allah ta'ala aanu dadaalo waqtigeena waa dhow yahay ay fadlan